السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rajaynayaa dhamaantiin bin wada fiican. maanta waxaan ii wadaa qiso cusub. haddaba qisadani waxay ka dhacday tuulooyin ka mid ah Suudaan waxayna isshaabahaan ama isku yara eegin qisadii Nabi Yuusuf calayhi salaam. qisada sidani ku bilaabmaysaa waxaa jirtay inay yar magaceeda la yiraahdo Rayaan inantaasi xaafadayada dhaleen markay da'deedu ahayd 12 jir ayay dhimatay markii 12 sano ahayd xaafadda iyada nin iyo inan baa ahayd oo subaxdii dhan adhigii raaci jirtay habeenkiina waxay ka shaqayn jirtay guriga inanta nolosha u dhaxaysay aabaheedna wuxuu ahaa nin aad iyo aad u kulul haddaba Rayaan maalin maalmaha ka mid ah maadaama ay ina yar ahayd oo ciyaar ah 12 sano jirtay iyadoo maalin sidii caadaheed adhiga la joogta ayaa waxa dhacday ciyaarka yarna markay yaryihiin waxa jira mar ay sicilo khayay iska ganacsiga ciyaaraan oo inta yaraad yara baxday iska ciyaarisay sidii adhiga la joogtay inantii waxa dhacday maalintaas saddex adhi ayaa ka lumay markii ay xareynisay ayay waxa aragtay in saddex bay ka maqan yihiin deeto markii meelaha ahayd ay maqrib soo noqonaysay inantii waxa isku dayday in door meelaad ka soo egto markii laakiin habeen ay siin noqotay waxay bilowday inay xaafadda ku noqoto laakiin aabaheed aad bay ku baqanaysay maadaama aabaheed waa nin aad iyo aad u kulul kadib waxay tiraahday maxaa ku tiraahdaa aabo adoo markii daba xaafadda soo gaadhay aabaheed waxay ku bilowday aabo saddex adhiba maanta naga maqan oo soo lumay kadib aabaheed hadalka mu dhageysay waxa uu bilaabay inay looxii adhiga lagu xaleynay inta soo qaado in tirad la dhaco ayaana laakiin waxay bilowday ku tiraado aabo subaxda marka la gaaro anaga taqaana subaxda hal gaaro anaga taqaanay unida uu wada markuu daari isagu lafiisu daari iska daayay intaan wuxuu bilaabay inuu fikiro oo waxa uu natar ku sameeyo uu ku fikiro ina tiri tiraade had kullee alxamdulillah wa tiraade hadu ku dilay uu nafisay kullee ku nafisay markaas waxdan soo baadho dilitaankii wixii xanuunkii ma dareemaysa waxa iska fikiraysa boqdin ay ka qabtay saala tiraaday kadib oday yaraa subaxdii markii gaadhay ina tirad wuxuu ku dhaaday laba mid dooro inaan ceelka laga guuray magaalada inta jira tuulada inaan kugu tuuro inaan ku dilo oo hooyada ka daba tagtay hooyadeed ina tirad way dhimatay kadib ina tirad waxay waaday adeecad bay ahayd aabeed aad bay adeecsatay kadib wuxuu ku tiraaday ceelka igu tur aabo ay ku tiri waayay ku dhaaday ina tirad aabeed tunkii ku qaaday witigan ceelkii intaanu ceelkii ku sirideen ina tayar macala wixii دوريس شرفت أبهد سي يعني واحد ترى بتفتح كنت راضي ينتهر يعني هذا اللي بدي أنا اللي تولد ويرتاح واحد كنت راضي حافظ وقعتي أو لو ورقتي أبهد يعني سي شرفت سودور سود ودلي هذا عيرك الدر كيس نوعها ستيد بقولي صوت المتر وأنا لقى جوري مصاص هنقرع وحكسه هوس دوي كشران إلهي أمر كيسة ينتهر شريد يروح هوسه وعيرك كمد ممكن كتورة كاسي كود على هوس تمردعم وحي مصاص وحي حكامي gaadhinba ina tireed sidii ku jirtay bilbi gaadhay markii bil gaadhay ayaa maalin kamida caruur yar ceelkaagtiisa ku ciyaaraya ayay maqashay shanqar ciyaar caruur yar wixii isku daday inay tiro qayliso ay tiraaday caawiya meesha iga saaray ina yar baa maqlay oo cararay tuulida ku noqday xulaaday waxaan ceelka ka maqlayaa ceelkii halka hay laga guuray qaylo ah iyo caawiya iyo gulmada iyo kaalaya dadkii ku dhaadeen dadkii ceelka shaydaamin ba tagtay oo laga guuray aday ku yeedhanayaan ha u dhawaan dadinin bas ku dayay oo rumaystay inuu day raaco oo raado bal waxa ka jira soo eg uu tagay markuu uu tagay waxa maqal arkay marka uu tagay ceelkii ninkii uu in kala rumaystay ninkii uu raacay ina tirana shaqadhay maqashay shaqadhay la soo socdo ay maqashay wax isku bilowday inay qaylido ولو تكيني كم كساق فرستح يقول هذا من إنسفة تمسكين وعي أكل يقول عندنا سلام برنا يدوي كشتا قبل آدمي وحتراضي إنسفة نهاية حرت بالك صدر راح يدني الرمسنين إذا أذوق ما كتبين تروي كسر صارين وحال يقول هذا ما كان كسر صاري أي ساعة كل كلوجي راح يقول هذا واي هاي سداد بلدان هل كذا كشتي cuntada kay kiri jirtay waxaad cuntada kay kiri jirtay bilaa qof la aadna kuma noolaan kare waxay tiraaday ilaahay baa junti isoo diray yani halka min allah ayaa qof leegi soo diray oo wajigiisa iftiin nin ka baxayo oo caani kiri jiray subaxdii muhal jiray ninkaasi sidoo kale maqalka markii gaadhana ninkaas caani kiri jiray
maalintan bixi doonana maalinta kasii horeysana ninkaasi wuxuu ku dhahday waad bixi doontaa ee egsano kadibna wuu iska noqday intaa yidhahdeen kadibna waxay tiraa idinku waad iga yimaadeen aad meesha iga saarteen deetay ina tireed waxaa la bilaabay in aabaheed la xidho kadib ina tira markay maxkamadda aabaheed la galeen waxay bilowday ina tira in aabaheed saamaxdo ay si isaga dayso kadib iyadii bilowday inay noolaato saameynta ku yeelatay ay ceelka beesha ku jirtay waxay noqotay saameyn kaliya oo ah inay suuxdo oo iyada meel ka joogtay suuxdo haddaba inantii markay dhowr sano kasoo wareegeen markay da'deedu marayso 27 ayay inantii guursatay sidii nolosheeda iska joogta maalmaha ka mid ah oo suuq meel markada joogta ay waxa dhacday sidii u suuxday inantii way dhimatay markay ahayd sanadka 2016 barta ayay ku dhimatay waxaana u sababaa suuxitaan iyadii meel joogta maalin markada ay suuxday dadinta sidii bay ku dhimatay xanuunkaas ay ceelka ka qaaday ee suuxitaanka ah kaas ayay ku dhimatay dadka qisada waxay ka dhacday Suudaan intii qubuuro kamid ah Suudaan baa lagu aasay dad badan baa ka soo qayb galay waayo intaas caab bay ka noqotay magaalada maadaama ay la yaabo qof builder ku jira ceel dheer dadintii halkii ayay ku dhimatay haddaba qisadeena maanta saas ku egtahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan jeclaysan lahaa dadka heshiinaad videogan like subscribe and share aad inta basmaysid. You're one, you're two, this is my baby.